dadan oo si weyn loogu soo dhaweynayay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ugaas Cilmi ugaas Jirow iyo waliba xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Hague ee wadanka Netherlands. Xafladan ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Holland oo uu horkacay Dr. Xasan Kutub oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan wadanka Holland. Waxa sidoo kale xafladda ka soo qayb galay jaaliyadaha Soomaaliyeed qaarkood ee ku dhaqan wadamada Switzerland, Belgium iyo waliba wadanka Finland ayadoo xubno jaaliyadahaas ka socdaan ay goobta ka hadleen. xafladda intii ay socotay ayaa waxaa khudbado ka soo jeediyay dadkii xafladda lagu casuumay qaarkood ayadoona si aad ah ay ugu amaaneen kaalinta ugaasyada Soomaaliyeed isla markaasna si weyn ay ugu farxeen in ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ugaas Cilmi ugaas Jirow uu kala soo qayb galay xafladan sida weynka loo soo qaban qaabiyay. waxaana dadka ay si aad ah ugu tilmaameen in ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ugaas Cilmi ugaas Jirow uu ka mid yahay ugaasyada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan isla markaasna wax badan ka qayb qaatay dib u heshiisiinta wadanka Soomaaliyeed ayadoo ugaaskan uu ka mid ahaa dadkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee hadda shaqeeya. intii xafladda ay socotay ayaa sidoo kale waxa ay dadku ammaan u soo jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba ugaasyada Soomaaliyeed sida ay markaasi uga shaqeeyaan nabadgelyada. hadaladoodina waxa ka mid ahaa waxa mahad Ilaahay igana abuurtay waxa kaloo mahad dadkii xafladan qabanqaabiyay iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha. xafladan maanta waxaan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo labaduba ka yimid Soomaaliya. halkan waxaan u imaanay inaan soo dhaweyno ugaas Cabdiraxmaan oo nooga yimid dalka Soomaaliya. kaligiisa ma aha ugaas kasta ama qof kasta oo xil ka haya ama xil u hayo ummadda Soomaaliyeed inaan soo dhaweyno ayaa waajib nagu ah. ma aha mar labaad waan kugu soo dhaweynaynaa ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed inaad ka mid tahay ugaasyada dhaqanka soo jireenka ah ee sida aftirsiinyaha ay tahay ugaas soo Jirow awowgaaga uu yahay qabiil balaaran oo Soomaaliyeed laga yaqaan aad u tahay. mar labaad dadka Soomaaliyeed ee halka fadhiya waa dadkii axraarta ahaa dadka Soomaaliya ee deegaankan deganaa kuna soo dhaweynaya imaantinkaagana maqlay kuuna balaynaya inaad la taqaanay hadal wanaagsan oo aad dardaaran aad siiso magaca qabanqaabiyaasha xafladda waxaan maxay ahayd markuu ugu horeysay salaam soo diray dadweynaha sharafta leh sida qiimaha badan ugu soo qayb galay xafladda ugaaska ugaas Cabdiraxmaan ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed. waxaa sidoo kale xafladda khudbad dheer ka jeediyay Dr. Daahir Amiin Jeeso oo xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan isla markaasna ka mid ahaa dadkii muddada deganaan jiray magaalada Hague ee wadanka Netherlands. waxaana uu sheegay in uu fariin ka wado gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo salaan taasoo markaasi uu la wadaagay dadkii xafladda ka soo qayb galay. Daahir Amiin Jeeso ayaa waxa uu si aad ah u faahfaahiyay waxyaabaha ka socda wadanka Soomaaliya gaar ahaan dagaalada hadda lagula jiro kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ka socda gobolada Bakool iyo Gado asagoona sheegay in degmooyin ka tirsan goboladaasi hadda laga qabsaday. waxaan ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta in ay markaasi ciyaalkooda ka cishtaan kooxda argagixisada isla markaasna waxa uu sheegay in wax badan loo baahan yahay in dadkaasi la iska qabto si nabadgelyo wadanka loogu soo dabaalo. wax kasta oo ay dhiigaada ku banaysan karaan shabaab way ku banaysanayaan. waxaan idinka codsanayaa mar labaad oo mabaadi'da dowladana ay ku salaysan tahay in shabaab ilmaheena aan ka soo ceshin. waxaan hubaa caruurta dabka iyo xaabada ay ka dhigtaan ma arkaysid nin mudiir oo isqarxinay godolo ismiin oo isqarxiyo ma ogolo cali dheer inuu isqarxiyo ma ogolo shangool inuu isqarxiyo ma ogolo waxa isqarxinaya waa ilmihii annaga aan dhaliyo dhalinyarada ahaa ee 20 jarkii iyo 30 jarka ugu weynay. walaalayaal adduunyada Ilaahay xageed ku aragteen aniga bixiyanka dabayna adiga orod hortaysi dhim qof lagu qanciyo. shabaab waxooda waa sixir dadkeena aan ka reeban ilmaha qurbaha ku koray
انت لسو تشكيليو لسو درايو اسقرحنايا ilmahaas hala celiyo ilmaha hala fahansiyo mabaadiida shabaab ay ku lisantahay inay tahay qandaraas laga soo qaatay meel kale inay tahay oo ayna ahayn wax diin inay ahayn waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan idinka mahad celinayaa xafladda tan aad noo samayseen ee qiimaha iyo qeeyaha badan hadda waxaan ku soo gabagabadii xafladda ayaa waxaa khudbad dheer oo taariikhi ah ka jeediyay goobta ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaas cilmi ugaas jirow oo ah ugaaska beesha gaaljecel isagoona sheegay in si aad loogu baahan yahay in waxyaabo badan laga qabto wadanka Soomaaliya isla markaasna si aad u amaanay dawladda Soomaaliyeed iyo waliba ugaasyada Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin dhanka dib u heshiisiinta ugu dambeyntiin wuxuu u duceeyay dadka Soomaaliyeed guud ahaan marka ilaahay idinkiis ووقتنا واسكجابين هاي ورمعانتيس علماء أغوياهن وهي أرق قبل أيا الشيء ورد من مجرته بركة إن شاء الله تعالى لو ذكر من الدعاء أيام الذي راعنا بإذن الله الكريم إلهي وحاكبري يا ومد الصومالي ذنو دبعتنا قبحي لباتني دور سنة صدنا سنة كل وانا كجرنا إلهي ونقبحي إلهي ودنهنا نقرنسي إلهي وقلوبتين نسوسات عبد الله محمد حسين تاجر وتلفزيون كقرنكا مقالة هيك ودن كندلان